السلام عليكم أصحابي عياري وصور مادينو تشيلسي عاوة ولقوا عيديستي سيدان هذا يدي شيء أرسنال با عاوة عيديسانيسو تشيلسي بيكون عيديستي إلهي أمريكي تشيلسي ما لقوا عيديسان يا مركز إلهي أمريكي عاوة ولقوا عيديستي أرسنال كوب كذي أفريت وانا أفكار بيكون جوليستينو عاوة الله بيرجع وحنا شكرا عن إيه قدرنا يو عاوة يا سوق البرنامج كل واحد قادنا الشركة ده جو تو كانستاري وحبرسات الدوني ساي تليفونات والنعمة ضيع أوكي بواي هاي وكايا أصحابي بلا وكا أرسنال عاوة دبلدقيان يا أرسنال وكوانو مرضى بيكردين والله يا جاناريس كوانو مرضى بيكردين والله قبّا شالي عدة تنعيا عاوة كان قشة واركين جول كبريتها بالري قش بالس يكور الأرسنال إمام مديدو محن عاول هي سكر عدة تنعيا إمام مديدو عاوة كون الله هي سكروا عياري تبني دي باصور ما ذا يو وكعاوة نمك كوي بديان أبا مليون wax kala ah gool meesid buu leeyahay caawa Chelsea baa gool bilowday Borussia baa gool fantastic dhaliyay inkastoo isagu dhaawacmay Borussia baa gool dhaliyay kadib markuu Borussia gool dhaliyay rigooro waxa keenay ninkii Balqueta ah Aba Miyon buu qabtay Aba Miyon rigooro khatar buu ka dhaliyay Caballero waxa riwaayadiyo Arsenal kula baa leeyahay waxa tiradamiya ninkii rigooro u qabanaya waa tiradeen waayilka Arsenal baa loo celiyay ya Aba Miyon baa koob ku qaadanaya markaa ya kadibna isaga baa dhaliyay gool meesiyad inta gool la kartagay horta zuuminta la wareystay loo sheekay lambarka laga qortay kadibna gool haya jikle loo kursi waa gool meesiyadinan waariyaha koobka Aba Miyon waa la sugayaa Aba Miyon baa koobkii qaadanaya ciyaartu Arsenal way sugayaan Arteta cawsuud bal dagaya lambad waa la garaacay يا أرسنال وعيديان عاو عيد عرفوا بيكون عيديان وإحنا كل عيديسان يكون لقول عيد جري إيه تشيلسي مرة بس أنا لقول هيا باميون إيجا قبتون وإيجا دعيو كوك يا كوك كده بيجا دعيو لا يعيب كدي وصاقب سنة يا كابتن أركان اللي بيحوا أركان لاعب واي كابتن أباميون كبير ويانك هيا قاي واو أرسنال همباليو جانار ويد بالدقة يا كوك كده ويروح يان عاو وحكلا ويان كبير ويان عجيب ويان وري أرسنال قلت نكان كل عقبالة نما يو أرسنال لو نكان كل عقبالة كم مشار بالة نكان هيديجو نكان واحد كله شيء بوانك كانوا أرسنال بانا عاوز داكو حقيقي ستيبوس كده يوروبليغا اف كاب كنا سداكو قاداي أرسنال يوروبليغا وي سوق شيء كوب كده وي قاداي أرسنال عاو كوب عاد ugu baahay badnaayeen يا وكال isku sawirayaan oo Arsenal koobka kan taariikhdu iyada ayaa mar kale caawisa saxday markii ugu dambeysay Arsenal koob ay qaaday 2007 yahay kooxday ka qaaday Chelsea bay yahay koobka wuxuu ahaa FA buu ahaa semifinalka Man City ku soo reebeen haddana ay ku soo reebeen Wembley baa lagu ciyaari haddana waa lagu ciyaaraya markaas Arsenal laba ku badisay caawan laba lagu badiyay taariikhdu iyagu nafteeda way saxday caawa nafteeda way saxday waana markii saddexaad Arsenal ay ka qaadayso Chelsea tartanka FA Cup-ka ya dabaaldeg bay unba halka ka soconaya Chelsea caawa goolka baraajaha Kemba Rede gish baa la siiyo laba gool iyo gool baa looga badiyay caawa كتر عمامة أرسنال عبين بيوتها عاوة يا عدو عاوة عمامة ظلمها يسكروا ورها لقو تورو جانر هبين بيقالة رنتي عاوة يا هبين كانوا أرسنال عمامة ظلمها يسكرين يا بريها عدونا ولا قراعي معنا هديب الأولى هو عدها يقول لقو قراعي يا هذا ما أنت تشيلسي قايسة لسه السوم هذا قارو حيلان تشيلسي قايسة لها أرتتا عاو عمامة ولا يا أرتتا شنو يسوون الله سيني بو كوك أفكار كو قاضي لما مدحها حنون عاو وليشيسي يا واورين يا مركا عدان ولا قراعي معنا خصوصا أرسنال ليفربول وحاليري ليفربول وعد عاو عيارتان والله قراعي ليفربول وعد عدان ولا قراعي معنا مان سيتي أرسنال باع عياري وحاليري مان سيتي هاليري أرسنال بان هبيكي بدسي ما ينادي جرس عيال هذينكي ما حسستان اف كاب سفينال كيسه مانشستر حلقه ما قبل كر الله iyo wacad iyagina waa la garaacay caawar Chelsea wacad cadayd iyana waa la garaacay bariyahan wacad cadow dham waa wacad cadahay dhanba hay dheen wayaan wacad cadahay dhanba hay dheen wayaane ciidamada Arsenal laba haysa caawiya qaay war meeshan jaamacad dhan waa yaqay jaamacadiina af kaab ko meesha yaqaan juruud wuxuu leeyahay jaamacadna wax qaban karo juruudan qof aan ayuu aniga waxa la ardayga jaamacada ka soo qalin jibi bisaan ay wixii macna isoo waxda jaamacada FA Cup ku yimaadin war wuxuu yiraahdo jaamacadna ma la dagaali karo nimanka wax ka qaban karo war waa jaamacadna uu yiri macna FA Cup ka waa markii 14 caaw Arsenal qaadayso waa koox ugu badan tartankan war cidda wax kala ma qaadaan Premier League waa hore ugu dambeysay Premier League ha sheegin Europe League xataa ma arkaan nimankan FA Cup kan waxa uu yahay koobkoodii wayaan marka jiruuda waxa la islaa arday meesha ka soo qalin jibi wayaan FA Cup soo daldalin jiray isaga caaw meel saari kara inkastoo goolka hore xataa caawiye laakiin wuxuu yiri kuwa wax laga qaban karo waa jaamacadan waxa la wariyad arday bisbaa tahay anigu jaamacadii dhan baan habaaliri ya Arsenal bana ku ciiday caaw kuwan waa lagu ciiday Chelsea waan dareemay ma xasuustaan warkan hadda aad dareemaysan wixii maanta ka hor waa waqtigan warka li soo gelinayay social media wataan ku soo qor YouTube kameraha ya waxaan ku soo qor waad arkayseen Chelsea caaw lagu armaaba Chelsea caaw lagu ciidaysa madaxan ka dareemay madaxa ayaan ka dareemay in Chelsea lagu ciidaysan doono wana ciwaanka ka dareemi kartaan wana lagu ciidaystay maxay waxaan ogaa
ciid carafo hore ayaa Chelsea lagu ciideysay Manchester United baan ku ciideystay oo 4 gool baa lagu dhuftay waana markay Manchester dheysay maalin kasta kuwan iga horkeen camal marka Chelsea waa lagu ciideystay oo caawa Arsenal baa ku ciideysatay birina waa Arsenal birina waa ciide ileen waa Arsenal waxa badiyay ileen waa Arsenal ileen waa Arsenal birina wad ogtahay wax magaalka ka dhici doona biri magaalka laga seexdo yaa qayr Chelsea isku soo bixino waxa weeyaan magaalkiina ka seexda yaa mar waa dhacday caawa yaa Arsenal Cup FA Cup laga qaaday waligeed bal lama sheegin warka ma maqashaa warkaygu ma fahmaysaa Arsenal oo FA Cup laga qaado waligeed bal lama sheegin ba tusaale ahaan Arsenal todobadii final ugu dambeeyay ciyaartay caawa ku todoba way qaadaysay todobadii final wayaan yaa ee Arsenal final ay joogta la dhaho way qaadaysay Arsenal marka Arsenal FA Cup kan waa lagu dilaa mooyaan waxba laga ma qaban karo ciidan waxba laga ma qaban karo waa qaadaysay hay iyaga la qaadi jiray Ferry Arsenal Ferriya laba kulabada Chelsea ka qaadeen laba saddexdii Southampton ka qaadeen laba shantii United bay ka qaadeen laba afartii Hull City bay ka qaadeen laba shantii Aston Villa ka qaadeen laba todobadii Chelsea ka qaadeen laba labaatan Chelsea bay ka qaadeen todobadii final ugu dambeeyay Arsenal ay ciyaartay waa qaadaysay marka Arsenal koobkan waa lagu dilaa mooyaane cidna kama qaadi karto yaa koobkan Arsenal madax degsi uu yahay caawa aad baan ugu baahay badneed Arsenal koobka inay qaado alla gool Messi Aubameyang ka yaabiya caawa inta loo sheekay Zuma gool hayaa jag laga korsi ka war waa gool Messi goolash marka loo karto gool hayaa jag la siinay jag waa gool Messi micnaha alla Aubameyang war yaani kaas ku qarash beela war ninkaas ilaashta war ninkaas 70 gool ayuu dhaliitay markuu Arsenal ku soo biray waa ninka ugu goolasha badan ee ka ciyaara horyaalka Ingiriiska oo dhan xataa Maxamed Salah uu ka gool badan yahay war ciyaaryahan walba oo Ingiriisku jooga tan markuu Aubameyang yimaado Aubameyang ugu gool badan 2007 markuu idmaan ilaa hadda wuxuu dhalay 70 gool warninkan wax kale weeyaan cumadiisa iska tuuranayo waxba cumadaada laga haysan karin ka kaay yaa inuu Aubameyang caawa Arsenal koobkan qaadina Aubameyang xataa wala sabi karaa waa joogi karaa marka yaa Arsenal koobka inay qaado muhiim u aha caawa sababtoo Aubameyang bay qalqaalinayaan hadii kale dad badan baa bixi lahaa yaa Noko Blue baa leeyahay yaa Noko Blue baa leeyahay waa ka caawa ko ma jira Blue ebel bajis wax badan ma laga sugayne arma FA Cup Aristal isla hayay laakiin waa ka Arsenal jaamacadii ka hortimaaday jaamacadii ka qaaday waliba Chelsea meel loo wada qaybtoor ciyaartan dareemay asbal kueto spirit kabtan ka baa dhaawacmay kadib hadan waxa si dhaawacmay Pulisic baa dhaawacmay sidii Rosso lagu sii daray in Chelsea meel loo wado waa la dareemay yaa marka waa kaayo dabaaldegi FA Cup kuwa sida ku soo dhamaaday oo soo sugaynayo yaa ciyaar bay heedo Giroud baana gool ku caawiyay yaa Giroud baana gool ku caawiyo oo waryahay Giroud baa caawa gool ka caawiyay tabinadii tooska ahaa ciyaaruhu ayaanu halka ku soo gabagabeynayna asxaabay marka waa kaayo caawa iyo ciyaarihi marka ciyaarahan soo sugaynayo marka waxa la leeyahay marka Chelsea caawa meel baa loo maray hadda Arsenal Europe League sabab ku xaqiiqsan yahay caawa William shaki waa keed baa lagu dhameeyay sababtoo ah William horta kanta dhaawac bay hore kanta ma shaqaysto noqdo dhaawac maxay tahay wana shaqaysi jiru waa hajir maxaa ku dhac William bariyahan yaa wala Ozil adana iska Turkiga iska jooga ma shaqayste shaqa marabtide Turkigiisu iska jooga mid ka kaay marka waxaad arkaysaa caawa ninkii William lama safin waxa lagu shaqaa William in Arsenal uu la siishii marka waxa sidii wareenkan hadii yaani uu ciyaar ama Arsenal ka bootiyaa bal isdaaw yaani u cimaamada ilaa Arsenal bal la xirinaya ninka la William marka madaxweyne wariyay meelka iga fariistay qooti af Soomaaliya كانت يرميها إن هذا واحد ربطها أرسنال وعمة متبادر ربطها واللي حاجة سوق فريس واللي بعير متقارب كأرسنال مات كذا جلسي إن ما كان يقولوا بس عليك ما حد يوارش شغني سابوا له وقهي أنا وكذا تجلس إن محسك عليه ويسن حتى وحنا كي يحاول مثلا بحي يسوي كذا لك ما بحي يا إلى هدي قرون كل جلوب حلقة إنهم بحي لا أوكي لمبات ولو إسك فري ماشي ولو كات فريو أضيق بالله سبك كبيرنا عاور جوار الله قد لي أرستين الله دري أرستين سكات بالي كدبنا قول ميست بالله قد ليو مركز أساس ولا كم بعض الشيء يسويه كواكا كحاويل كويل كصفتي إلى عاوني كجرام ما بلا سوق اللي بكابو كات كان لو قدام عنق أجون وكات كون نقضي أو يعني lama safin marka waxa laga baqay hadii hada soo gilaa xataa liila rigoorada agtida lagu bedela wuxuu dhahadan baxay u dhahaya marka Master Baxay waa laga diiday iska kadka iska fadhiya leeyahay caawa marka Arsenal caawa way ku guuleysteen ciyaaraha FA Cup-ka taariikh weyn bay gashay barina way isaga ciidi doonaan kulay ilaa waa Arsenal cid badis ilaa waa Arsenal bari magaalka buuq baa ka taagan gurigiina iska kala xaroodo waa ka caawa si style bay ugu dabaaldegeen caawa koobkiis ugu horeeyay waa caawa Arteta gacanta ku dhigay isagoo macalina waana koobkii 14aad oo ay ku guuleysanayaan wayaan kooxda kubadda cagta Arsenal tartankan kooxda ugu badan wayaan iyaga tartankan kooxda ugu badan wayaan armuuba Guardiola yaa sidaa ninka kuno markaad ma taqaan madax ka qaado yaa madax basbiil baa soo baxay inuu Guardiola baad u maleynaysaa ninka la yiraahdo Arteta sababtoo ah ninka kan uu yaani Guardiola baa xogaa maskax ku soo shubay odagoo waa ka caaw Chelsea ku garaacay meeshta Aubameyang laba gool buu final ka soo dhaliyay Man City caawana ku aan boodilay Aubameyang laacib ahay yaa Anthony Taylor saddexdii final ee uu Chelsea garsoor u noqday garsoorahan
فاينل كان كيكوري ارسنال تشيلسي عياريان اف كابكا موس ايو لبا جال روس كسي عاون كوفيس بوروسي marka garsoorahan ba haduu qabanayo Chelsea balaya ku dhacdo finalka hore FA Cup xasuuso Moses ayaa Rosal si ya oo Kambasi garsooran baasi caawan isaga hadan Rosal si Kovacic marka waxa uu leeyahay saddexdii final uu ninkan Anthony Taylor garsoorahan u dhexdhexaadiyay kulmada Chelsea maxaa ku dhacay Chelsea Community Shield bay loo tushatay Arsenal la ciyaartay Chelsea Arsenal ba koob ku qaaday laba ku dhexdii wuxuu qabtay ciyaartii FA Cup Chelsea Arsenal buu dhexdhexaadiyay hadana Arsenal baa laba hal ku qaaday hadana caawa hadana Arsenal baa laba hal ku qaaday marka ninkan nasiib uma han Chelsea haduu xataa garsoorayo Rosal buu basiya finalka hore FA Cup Rosal si caawana Rosal ku turayo laakiin saddexdii ciyaar ugu dambeeyay ninkan uu kooxda u garsooray Chelsea waa laga qaadayo koobka laba FA Cup iyo Community Shield baa sida looga qaaday Tierney arninkaas laacib waa Tierney wax kala waaye Tierney shub waa ninka ka caawa gool hore oo xasan halka u dhigay ninka nin caadi ma aha ya kiran nin caadi ma aha Tierney hadda waxa uu haystaa koob wad Arsenal la qaadayo cunuga kan koob ayuu ku guuleystaa lagu leeyahay ka soo bila waqtigii Scottish ila hadda Aubameyang ayaa isaguna caawa noqday kabtankii ugu horeeyay ee Afrikaan ah ee kulan FA Cup final kabtan noqda deetan koob ku guuleystay hadana ya koobka Afrikaan buu Arsenal gacanta u galiyo mid kale Aubameyang waa kabtankii ugu horeeyay Afrikaan ah oo FA Cup isagoo kabtan xiran ciyaaro weeyaan ya وانا وقاضي عاو كوخدا ارسنال كوب كو قادايو marka ninkan waa nin aad u qatar badan oo Aubameyang caawa ya Giroud ayaana markii ugu horeysay koob looga qaaday Wembley isagoo ku ciyaaraya xirfadiisa ya markuu tago warka ku qaadi jiray jaamacadii uu ciyaari jiray caawa kooxda jaamacadda ka soo rijiisatay waxay yiraahdeen ya ma ka yeelin way yiraahdeen waka ya wakaayo sidoo kale meesha waxa ka dhacaawa Arteta wuxuu noqday qofkii ugu horeeyay Arsenal ee koobkan isagoo kabtan ku guuleystay isagoo macallin ku guuleystay isagoo kabtan wuxuu qaaday waqti 4 isagoo macallin buu qaaday arba taariikhdu waa ka caawe ya arwa kayo caawa meesha waxba ka dhacayo Aubameyang ya wuxuu noqday ciyaartoy ugu horeeyay Arsenal taariikhda ee laba gool ka dhaliya Wembley ciyaar isku xiga Man City ومالود كغسول لسه فينالك عاونا وحو كدليه كوخدا تشيلسي ورياني كان كل عق بيلا ورياني كان عشتا هادو نيكان إذا كتغو شخ مربتينه ولا لو ilmaha Soomaaliyeed hanaga waalin Arsenal looga qaba hanaga waalna ya ilmaha hanaga waalin oo wax weeyaan Arsenal looga qaba marka caaw meesha waxba ka dhacay runtii iyo Amerikaanka ugu horeeyay uu noqday caaw isaguna Pulisic yani gool ka dhaliya FA Cup finalkiisa waa ninkii ugu horeeyay Mareykan buu noqday caawa ninka la Pulisic ya waliba waxyaabaha meesha ka dhacay waxa kamid ahaa Pulisic Aubameyang waxay wada joogi jireen Dortmund caawana iyaga ba goolasho hore ciyaartu bilaabay bareejiyay kadib Aubameyang baa ku daray labadii laacib halka joogi jiray Willish Club ayaa caaw halka isku waalayo si fiican isla ciyaari kasto Pulisic markii dambe ciyaartu laga saaray waliba waxa yaab leh in Oliver Giroud isagu uu caawiyay goolkii Europa League Arsenal finalka laga qaaday Chelsea qaadaysay Europa League goolka isaga ka caawiyay caawana isaga ka caawiyay Christian Pulisic ba ka caawiyo marka waa ka habeenkii weynaaba soo dhamaadayo waxyaabii waa weynaaba meesha ayaan isha ku dhufanayna ee caawa meesha ka dhacayo alla Arsenal ciimamadooda lama haysan karo waliba Kovacic baa wuxuu caaw noqday ciyaartoygii lixaad ee ka Rosal la siiyay kulan FA Cup final ah ya waa ninkii lixaad ee final la siiyay Rosal weeyaan FA Cup lagu siiyaa waliba labadii ciyaartoy la siiyay FA Cup final Rosal lagu siiyay Chelsea bay ahaayeen baa lagu leeyahay marka waa ka sidoo kale ogow caawa 70 gool buu Aubameyang gaari waa ninka ugu goolasho badan tan markuu horyaalkan yimaaday warweyn tan iyo February 2018 waliba Aubameyang wuxuu noqday ninkii ugu da'da weynaa ee FA Cup ka Arsenal gool ugu dhaliyay finalkiisa tan iyo 1932 nin waayeel in Arsenal uu FA Cup gool ugu dhaliyo ninka 33 sano iyo 44 maalmood buu jiraa marka ninkan taariikh buu sameeyay Amerikaanka ugu horeeyay uu noqday Pulisic sidoo kale wuxuu noqday ciyaartoy si u dhaqsiyaha badnaa gool Chelsea ugu dhaliya finalka FA Cup ka tan iyo Roberto Di Matteo 1987 buu noqdayo caawa yeelkii baa la safay ee Caballero isagoo 36 sano jira iyo 308 maalmood ayuu ciyaartan ciyaaray waxa uu ahaa ninka ugu da'da weynaa Chelsea u ciyaara final buu ahaayo Aubameyang waa ka taariikhda caawa galay ee African final captain xiran FA Cup ciyaaran uu isaguna caawa ahaayo marka runtii Arsenal taageerayaashu aad u dabaldegayaan xataa booskooda Europa League sidaan bay caawa ku haystaan runtii aad bay u ciyaareen Dani Ceballos wax kale uu ahaa markay ciyaarta dhamaatay tababaru Ceballos ba kor u qaaday war Ceballos bariyaan wax kale uu noqday waa sababtay Arsenal u celinayso ama hadana ay ku sii haysanayso weeyaan Arsenal ay u soo baxday Europa League waxay ka dhigan tahay Spurs laba wareeg bay ciyaari doonaan si ugu soo baxan yaani la wareeg bay ciyaari doonaan tartanka Europe ay u ciyaari doonaan si ugu soo gudbaan Europa League tartan bay u gali doonaan marka habeenkii weynaa baana halka caawa ku soo gabagoobay ciidamada Arsenal ma haysan karo anigu waa ku soo tuuray marka ciid wanaagsan baan ilaa Arsenal waad ku ciideysteen kuwa kale reer lagu
ciiday waa lagu ciidalay kuwan wax ma ciidam iyaguma ciidamay Chelsea-ga ciid dhaxdaasna Manchester baa ku ciiday caawana Arsenal baa ku ciidaysa halidu ku ciidaysto maradii ka dhacday kan eegisha war kan goolka bareejaha laba dhag anu waan ku sheegay Arsenal habeenkeeda waxba lagama qaban karo habeenkay Arsenal habeenkoodu yahay war Chelsea iska dhaafay Chelsea wax kama qaban karayaan abu anu waan ka yaabay Arsenal wax kala tahay 14 FA Cup taariikhda koox ugu badan tartankan wali sama ogtahay mayna dhicin taariikhda hal koox in ay hal koox kale 3 koob FA Cup ka qaado Arsenal baa Chelsea ku sameeysay ileen waxa lagu leeyahay Arsenal waxay noqdeen kooxdii ugu horeysay ee hal dhinac iska garaaca markay FA Cup final ugu yimaadaan waana Arsenal ay ka qaaday FA Cup kuwan 3 jeer bay ka qaadeen marka Chelsea maradu waa ka dhacdayo waa ka lagu baashaalayo lagu ciideystayo lagu wadciyeesayo ileen waa Arsenal yaani bariyan ka hadlaya ileen waa Arsenal marka ku leeyahay bari magaalka iska jiifta wayaan maxay ileen waa Arsenal cid badisayo bari magaalka maridaan ma lahano waa ka caawiyo ciyaarihi hambaliyo Gunners kuwa kale marada ka dhacdayo aan ooyay albaabka iyo xira caawa ka dhacday Chelsea nabad galiyo